magaalada Jigjiga ayaa laga daafuray ololaha barnaamijka tageynta waxbarashada ee jiilka cusub faalo murtaas ku saabsan iyo wariyahayga Cabdilaahi magaalada Jigjiga ayaa lagu daafuray ololaha barnaamijka tageynta waxbarashada jiilka cusub barnaamijkan oo heer dal iyo heer deegaanba ka socda ayaa lagu galeeyahay sidii loo tageyn lahaa nidaamka waxbarashada isla markaana kor loogu qaadi lahaa kaabayaasha horumarineed ee dugsiyada deegaanka iyo iska kaashanaya bahwadaagta waxbarashada sida waalidiinta aqoonyahanka ganacsatada iyo bahda waxbarashada barnaamijkan ayaa sidoo kale gundhig u ah soo saarista jiil cusub oo xambaarsan waxbarasho tayo sare leh iyo hirgelinta sabab ku habboon nidaamka barasho kulankan lagu daafuriyay barnaamijka oo shirkadoominayay maamulka gobolka Faafan ayaa goojoog ka hayeen hogaaminta koobiyeedka degmada gobolka Faafan wax garad culimooyin aqoonyahan ganacsato iyo mas'uuliin ka socotay bahda waxbarashada ee deegaanka Soomaalida ugu horreyn gudoomiyaha gobolka Faafan Mudane Abdixakiin Sheekh Xasan oo furay kulankani ayaa tilmaamay in tan isbedelkii kadib ka gobol ahaan laga wado dadaalo kor lagu qaadayo tayeynta waxbarashada saadogtiin tan iyo intii isbedelku deegaanka uu ka dhacay iyo dalkaba waxaa la wadaa dadaalo ballaaran oo wax lagaga qabanayo tayada waxbarashada taasoo koow ka tahay in si ballaaran loola dagaalamay qishkii iyo waxyaabihii maaragtay waxa weeyaan anshaxumada ahaa tayada maaragtay waxa weeyaan waxbarashada iyo ardayda aad hoos ugu dhigayay isla markaana la sameeyey goobo waxbarasho ama dugsiyo aad u tiro badan oo dhammaan deegaanka la gaarsiiyey gobolka Faafanna uu ka mid yahay meelaha dhanka waxbarashada aad wax looga qabtay xagga dhismayaasha haddii ay noqoto dadaalada kale maaragtay lagu horumarinayo waxbarashadaba shaqooyin ballaaran baa laga qabtay intii isbedel ka dambeysay marka dawlad ahaan waxaa la isla gartay in dawladda kaliya ayna ahayn shaqadani maaragtay shaqo u taalla miisaaniyadda dawladda kaliyana ayna lagu bedeli karin isbedelka weyn ee maaragtay dhanka waxbarashada la rabo in laga sameeyo marka shirweynahan dadka ka soo qayb galay waxaa maaragtay rabnaa halkan maaragtay inaad ogaataan in odayaasha culimaadudiinka waalidiinta hay'adaha kala duwan ee maaragtay aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga ah kuliyadaha dhammaanteen inaan isku kaashano sidii wax looga qaban lahaa dugsiyada waxbarasho iyo goobaha carruurteena ay ku baranayso dhankoodana ka soo qaybgalayaasha kulankan ayaa ballan qaaday yaabaha dhaqaale ku taageerayaan si dib lagu soo celin lahaa kaabayaasha asaasiga ee dugsiyada gobolka Faafan iyagoo dhanka kalena soo jeediyay talabixino iyo waanooyin ku aadan sidii kor lagu qaadi lahaa tayada waxbarashada ee gobolka Faafan ololahani waa olole muhiim ah oo mug iyo miisaan leh haddii sidiisa looga midho dhaliyo sababtoo ah wax lagaga qabanayaa kaabayaashii dugsiyada waxbarashada ardaydeena ama ubadkeena haddii kaabayaasha aan wax laga qabaninna waa la daalayaa uune wax hirgelayaa ma jiro caalamka waxaa ka jira heer xadidan oo loogu talagalay ardayda in laga dhigo marka ay yihiin dugsi hoose marka ay yihiin dugsiga barbaarinta dugsi hoose wareegga koobaad wareegga labaad dugsi dhexe dugsiga sare xataa kulliyadda markay galaan qoonda waxaa jirta waqti kasta la qaato oo qoondada waxaa lagu salaynayaa in waxbarashada si toosa ay uga faa'iideysan karayaan baa yaa lagu saleeyey halkii laga rabay fasalku inuu ugu badnaan noqdo 30 ama 35 ayaa waxa laga yaabaa inay 135 arday fadhiyaan xiisadii 40 daqiiqo ahayd ama 45 daqiiqo haday ugu badato ee waliba qaybsanayd ee hordhac iyo cashir gudbin iyo qiimeyn iyo kala lahayd barayaashan isfahmeynaa macallinku wuxuu ku dhamaysanayaa aamusabu ku dhamaysanayaa arintii nooca ahayd in maanta ilaahay nagu baraarujiyo isaga mahad ku leh laakiin yaanay noqonin qowda maqashi waxna ha u qabanin waa in sida loo bilaabay loo dhamaystiro
afka iyo suugaanta ee jaamacadda Jigjiga dugsigu doonaha noqdo ama laba dugsi baan u qaybino waxaan ugu deeqaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ugu deeqaynaa kaabayaasha dhanka markaan ka eega kaabayaasha buugaag ayaan ugu deeqaynaa afka hooye ah oo weliba kuwa aasaasi ah taasi waa qodobka labaad anigu shakhsiyan mushaarkayga oo 1 bil ah waan ku deeqay xubnaha ila shaqeeya ee iga hooseeyana tashi intaan dib ugula noqdo insha Allah biidnillah alkariim maadaama wayna halkan fadhiyin iyo wixii kale aan ka ololeyn karno waan ka ololeynaynaa waxaan anigu leeyahay nidaamkan hadda loo dhaqaaqay ee abaabulka iyo waxbarashada tayeynteeda anigu waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaan oran lahaa ganacsatada heer degaana ha laga abaabulo oo ha loo soo bandhigo barnaamijkan heer degmana ha laga abaabulo dibadda dadku qof kasta oo ama heer degaana ama heer degma waxa loo baahan yahay inuu ardaygiisa wax barto wiilkiisa inuu wax barto yuu raali ka yahay deenu horta kulli shirkad baan anu wakiil ka ahay wax kala kulli dii halkan fagaaraha midna anu horta 100 kun baan ku deeqayaa oo ku direeyaa marka laakiin waxaan leenahay dawladda aad baan soo dhaweynaynaa inay toos ku ifiso waxbarashada halkii la taagnaa shirarkan oo kalena hala dhaadhiciyo waagaanu annagu ardayda ahayn ee quraanka looxa la noogu dhigi jiray waxa la oran jiray 3 buu ku aflahaa ardaygu wuxuu ku aflahaa macallin qaariya oo yaqaana waxna bari kara arday qaylo dheero laxnigiisa hadalka dheer lagu maqlo laga duwo aaba quudi ogo macallinka aan qaalinta uu sugayo ku daynine horteed sii gargaara hooyo qalqaali og ku bartaa baan oran jiray saddexdii way u taallaa imika dadka jooga ee wax baraya caruurtooda wax baraya saddexaas way u taallaa mid afraad ee soo raacdeen waagaa jirin waa maxay waa dawladduna waa inay kaalinteeda qaatay aabbihii labaad maanta tahay oo hooyadii labaad maanta tahay oonay ku eegin dadka waxbarashada iga taguna caruurta la oranin taasina dawladda waxaan leeyahay hadday macallimiinta tahay iyo hadday tirtirsiimaha tahay intaba ha ku gacan qabtaan baan leeyahay